رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. كسو دواada walaalayaal mar labaad xalaqadeeni lixaad ee barnaamijkeeni tababarka nolosha guurka. ciwaanka xalaqadan wuxuu ahaay doorashada guurka, doorashada xaaskaaga. doorashada ugu daran ee aad sameynaysid noloshaada waxa weeye doorashada aad dooranaysid xaaskaada. waa tee haweeneyda geesiyada ee kula wadaagaysa noloshaada adduun inta ka dhiman kadibna noloshaada aakhiro. ka raadi haweeneydaas sifooyin 10 ah. sifada koowaad oo ah al-islaam waxaan kasoo sheekeynay goosgooska ka hor. sifada labaad as-salaax, inay noqoto haweeney wanaagsan, inay noqoto haweeney diin iyo salaax leh. maxaa yeelay haweeneyda runleyda ah ilmiyadaada iyo carruurtaada waxay ku tarbiyanaysaa runta. maxaa yeelay haweeneyda ballan ofiska badan carruurtaada ayay ku tarbiyanaysaa ballan ofiskaas. haweeneyda raxmadda iyo cudfiga badan waxay ku tarbiyanaysaa carruurtaada raxmadda iyo cudfi. haweeneyda xishoodka badan carruurtaada ayay ku tarbiyanaysaa xishoodka. haweeneyda daayicadda ah ee saalixadda ah carruurtaada ayay ku tarbiyanaysaa daayicad inay noqdaan. rasuulka Allah wuxuu leeyahay haweenka waxaa loo guursadaa 4: limaaliha, lijamaaliha, lidiiniha, lixasabiha. fatfar bidaati diin, ku dooro diinta, dhanka diinta. fatfar bidaati diin taribat yadak. almuhim walaalayaal waa inaad doorano haweeney saalixad ah. rasuulka Allah salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi qofka addoonka ah ila ka cabsiga kadib khayr ma faa'iido ilaa haweeney saalixad ah mooye. haweeneyda saalixadda waa tahay rasuulka Allah ayaa sii wadaya xadiidkiisa wuxuu leeyahay haweeneydaas waa midda haddii uu amro adeecdo, haddii uu fiiriyana farax geliso, haddii uu u dhaarto oo wax ku dhaartana u baari fasho oo wixii uu ku dhaartay samayso, haddii uu ka maqnaadana u ilaaliso oo u xifdiso maalkiisa iyo waladkiisa iyo carruurtiisa. haweeneyda saalixadda ah ayaa ah midda kuu qalanto. sidaa darteed haddii ay tahay haweeneydu mid aan wanaagsaneyn waanu kaaga cabsanaynaa. maxaa yeelay waa mid aan ilaahay subxaana wa tacaala adeecin. say adiga ku adeecaysaa? waa mid aanu fulin awaamirta ilaahay. sidee u fulinaysaa awaamirtaada? sifada koowaad al-islaam waaye. midda labaad as-salaax. midda saddexaad al-wacyi, inay tahay haweeney caqli badan. waxaa u baahan tahay haweeney caqli badan, inuu caqligeedu yahay caqli sare oo furan oo kala dabari karo arrimaha nolosha. sidee walaalayaal noloshu waa adag tahay. sida aad aragtaanba noloshu waa mid ka buuxda humuum iyo waxyaabo maxaa la dhahay murugo iyo dhibaatooyin leh. haweeneydaas caqliga badan way kugu caawinaysaa maxaa la dhahay noloshaas iyo waxyaabahaas dhibaatooyinkaas. tusaalahaan oo kale adiga shaqadaada joogtaa waxaa dhacda ilaahay ma sameeyo laakiin waxaa mararka qaar dhacdo in carruurtu ay ku dhacaan guriga. cunugaaga haddii uu meel ka soo dhaco dhaawac gaaro oo dhiig ka imaado, haweeneyda caqliga badan cunugaas waxay isku dayaysaa inay gurigeeda ku daaweyso oo calaanihii wax saarto oo dhiiggii ka xaliso. haddii ay aragto in dhiiggaasi uu maxaa la dhahay sii daadinayo oo maxaa la dhahay xalismi waayo dhibka, way kusoo wacaysaa. waxay ku leedahay bannaankiina aadnaa rabnaayo wax yaroo dhibaato yaraa jiro oo aad u fudud aniga ka adkahay. way baxaysaa kadibna waxay aadaysaa maxaa la dhahay isbitaal iyo farmashi iyo meel lagu xaliyo dhibaatooyinkaas. kadib markay cunugii soo daaweyso way soo laabanaysaa. galabkii marka adiga shaqada ka soo laabato way ku sheegaysaa. waxay ku leedahay wiilkii maanta dhibkaasaa ku dhacday, maxaa la dhahay waan bixinay, waan soo daaweynay, alxamdulilah hadda wuu fiican yahay. adiga cunugaaga arkaysaa waa ku itminaana ku galaayo, waa degaysaa, waa farxaysaa. haweeneydaas caqliga badan tartiib si degan ayay ku caawinaysaa. laakiin haweeneyda aan caqliga lahayn laga yaabay markii wiilkaas oo dhaawacmo inay ku ag dhacdo ayadana maxaa la dhahay ku ag oydo calaa casho. waxaan u baahanahay haweeney caqli badan. waxaad u baahan tahay haweeney kala dabarto amarada iyo waxyaabaha dhacayo. waxaa dhacda mar in haweeney saalixad ah oo muxajabad ah oo wanaagsan gurigeedii uu ka dhacay dab.
laakiin haweeneydaas saas u xijaabinay wanaagsan caqligeeda ayaa xogo qalal ku jiray waxaa dhacday in ninkeedii uu maqan maxaa la dhahay gurigii dab ka kacay wax isku dayday inay damiso laakiin way awoodi weysay kadib dabkii wuu faafay ilaa ay dariskii ogaadeen in dhismuhu ka jiro maxaa la dhibaato waa la isweydiiyey waa la iswareystay waxaa la ogaaday guryuhu dhan inay nabad yihiin ilaa gurigaas kadib guriga markii loo imaaday guriga waxaa ku jirto gabar kaligeed xaaskeedina waa maqan yahay dariskii guriga ayay gargaraaceen dabku ma dhankaagiya ayaa lagu dhahay markaas waxay tiri haa dabku waa dhankayga kadib baa la yiri waa aan ku caawinay iridda naga fur aan iridda naga fur aan dabka daminay markaasay tiri ma awoodo inaan u furo gurigayga niman ma awoodo inaan furo walaal wuu gubanayaa guriga mayo walaa inaan furayn ilaa ay markii dambe gurigii iriddi dumiyeen nimankii kadibna galeen haweeneyda saalixada ee sax laakiin meen ahayn mid caqli leh khalal ayaa ku jira caqligeeda anaga waxaa rabnaa haweeney muslimada ee saalixad caqli leh waxaa idiin sheegaya walaalayaal amar in rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu furay haweeney habeenkeedii koowaad ee aqalgalka waxaa laga yaabaa qaarkiin inay tahay habeen markii koowaad ee maqlaan amarkaas haweeney la furayo habeenkii aqalgalkeedii ee koowaad xaasku ninku wuxuu ahaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi gabadhan waxaa la dhihi jiray aljawniya aw ibnatu ljawni xaaskaas rasuulka sal alay slam ayaa guursaday wuu doontay maxaa la dhahay kadib waa lagu meheriyey oo wuu guursaday oo xaaskiisii ayay noqotay kadib markii habeenkii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi usoo galay xaaskiisii oo damcay inuu maxaa la dhahay wuxuu damcay inuu gacantiisa oo madaxeeda saaro kadib waxay tiri acuudu billaahi minka kadib rasuulka sal alay slam wuu la yaabay maxaa u leedahay hadalkaas kadib waxay tiri rasuul allah miyaadan jecleen in lagu dhaho hadalkaas kadib rasuulka sal alay slam wuxuu yidhi ma anigaa jecel in lagu dhaho acuudu billaahi minka kadib waxay tiri haa xaaskaaga ayaa ii sheegeen xaasaskaagaada ii sheegeen waan weydiiyey waxaa dhahay muxuu jecel yahay rasuulka alleh waxay ugu dhaheen haddii uu kuu soo dhawaado acuudu billaahi minka ku dheh waana kugu dhahay kadib rasuulka alle sal alay slam wuxuu yidhi ehelkaaga gaar waa furan tahay waxaad cogsatay meel la cogsado meesha ugu saratay laqad cudti bimacaad rasuulka alle salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu aqriyey xaaskaas caqligeeda ma caqligal baa in qof uu weydiiyo cadowgiisa su-aal ama wax uu weydiiyo kadib haddana haddaa weydiisid xitee oo wax uu kuu sheego sidii uu kugu sheegay miyaa u qaadanaysaa ma ka fikiraysid haddii aad raadisid masalan adoo nasiixa iyo raadinaysid nasiixa inaad qaadasid maahan hadalkaas ku sameey baaritaan rasuulka alle salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu aqriyay caqligeeda umana qalmo kabtanka diyaaradda wado inuu soo galo qof aan caqli lahayn maxaa yeelay diyaaraddaas ayuu ridayaa qofkaas aan caqliga lahayn qolka laga hogaamiyo qoyska waxaa muhiim ah inay soo gasho haweeney caqli leh haddii kale waxaa burburinaysaa gurigaas waxaa kuu qalantaa haweeney muslimad caqli leh waaciye wanaagsan qodobka afraad waxaa kuu qalanta haweeney xishood leh ka raadi haweenka xishood diin walba waxay leedahay dabeecad iyo khuluqa iyo dabeecadda diinteennuna waxaa waaye xishoodka haddaadan xishoonin wax alaali wixii aad rabta sameey xishoodku wuu qurux badan yahay laakiin wuxuu aad ugu qurux badan yahay haweenka wax alaali waxay isku qarxiyaan haweenka waxaa ugu quruxda badan xishoodka haweeneyda ee burburiso maxaa la xishoodkeeda xishoodna aan lahayn haweeneyda ku labisanaysa dharka nimanka la qoslaysa nimanka haweeneydaas kuma qalanto adiga haweeneyda kan la hadlayso kan la doodayso kan wax ku darsanaysa laga yaaba kan inay gacan geliso laga yaaba in lagu tilmaamo kan haweeneydaas kuma qalanto haweeneyda xishoonayso ayaa midda kuu qalanto haweeneyda dadka laga dhex yaqaana magaceeda iyo inta la eg tahay iyo qaabkay u tahay sida ay tahay maahan mid kuu qalanto haweeneyda xishoonaysa ayaa mid kuu qalanto xishoodku waa amar aad muhiim oo ninku laga rabo inuu ka raadiyo xaaskiisa waxaa kuu qalanto gabar muslimad gabar saalixa oo wanaagsan gabar caqli leh gabar xishood badan midka shanaad waxaa weeye waxaa kuu qalanto gabar daa'icad oo ku adeecayso raadi haweeney ku adeecayso adiga sidee ku aqoonsan karaa gabadhan aguursanaya inay tahay gabar i adeecaysa ama aan adeecin fiiri hooyadeed iyo aabaheed sida hooyadeed iyo aabaheed isku adeecaan maxaa la dhahaa inta aadan guursan ka hor fiiri aabaheed iyo hooyadeed fiiri hooyadeed
maxaa yeelay gabadhu waxay wax ka barataa hooyadeed. waxaa dhacday in wiil dhalinyaro ah mar uu imaaday sheekh asaga oo raba inuu kala tashto haweeney uu guursan rabay. wuxuu sheekhi weydiiyey magaceed, xagee ka imaatay, halkee dhigataa, meeqa sanay jirtaa. hadalladii uu wiilka dhahay waxaa ka mid noqotay 8 gabdhood ayaa la dhalatay. sheekhu wuxuu yidhi 8dooda ma la guursan mise ma la guursan? waa la guursaday 8dooda. ka waran 8dooda? kadib wuxuu yidhi 8doodii baa lasoo furay. sheekhu wuxuu yidhi ka carar haweeneydaas oo ha guursan, waxaa laga maarmaan ah inay kugu dhacayso wixii ku dhacay 8daas. wuu khilaafay ninkii sheekha, wuuna guursaday. kadibna 1 sano kadib wuu soo furay oo waxaa ku dhacay wixii ku dhacay 8daas. raadi haweeney daayacad ah, raadi haweeney hooyadeed ee aabaheed adeecayso, raadi haweeney gabadha la dhalatay ee adeecayso ninkeeda. gabadhu meeshaas ayay wax ka baranaysaa. tan waxay ahayd qodobo 5 ah oo laga maarmaan ah inaad ku doorato xaaskaaga. waxaa dhiman 5 kaleeto oo aanu idiin sheegi doono insha allahu tacaala xalaqada soo socoto ee barnaamijkan tababarka nolosha guurka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.